waxaan halkan kaga mahadcelinayaa Yaasiin Aliyey waxaan halkan kaga mahadcelinayaa Idla Cumar oo ku nool Mombasa iyo dadka page-ka Facebook ee Sheekh Shantaay ku xiran in Allah Rabbul Alamin uu nagu guuleeyay sanadkii aan joognay baraha bulshada wuxuu Allah Rabbul Alamin nagu guuleeyay dad naga mid ah ee u baahan gargaarkeena iyo gacantayna iyo gacansiismo inaan soo bandhignay oo aan caawinay waxaa kamid ahay bilihii ugu bismillah salaatu wasalaamu ala rasuulillah وعماد له الله رب العالمين مركا حكتا أصحابتي إذا وكحرا تبينتا شيخ شانتاي يا نمهد علينا يا وحان رواينا نلو داغو إن الله رب العالمين عمر دير في عافمات أنكو قدني إن كرادة منكركا يا أهل كيسا كديجيستا ظلميغا gargaarka midka u baahan in la gargaaro amaanada oo la guto cadaalada oo dadka loogu yeero dadka xun caydooda iyo dhibaatayntooda oo lagu sabro munaafiqiinta iyo munaafiqaadka oo la iska dhacsho yacal la iska yiraahdo si cad asxaabtayda waa sanad jirsanay maalinkii aan ku soo biiray baraha bulshada oo aan sameynay page-ka Facebook iyo kanaal YouTube waxaan noo buuxsantay oo noo xirmatay hal sano Allah ayaan u mahadcelinaynaa waxyaabahan qabanay waxa kamid ah oo Allah Rabbul Alamin uu nawaafajiyay sida dugsi Qur'aan dayacan oo u baahnay dhismo iyo qurxin إن الله رب العالمين ونقول قولي سندكي أن جوجني برها بالشدة وحول الله رب العالمين نقول قولي داد نجم إذا أباهن جرجار كينا يجعن تينا يجعن سيسمو إن نصوبن رجني أو أن عاوني وحكم إذا هاي بليه وجودن بيجي ديق راشينا أو فاميلة صوماليات أو دنيا راه أنجرسيني وحنا كان كجم هذا علينا يا walaalkay Sheekh Xasan oo goobtan gacanta ku hayo sanadkii aan la joogay shukaansi farabadan oo ah Sheekh Shantaay iyo aniga iyo asaga in la kala dilo oo dhaxdayna colaad iyo shaxna la dhaxdhigo diiday walaalkay aan u mahadcelinayaa xaajiga masjidka dhisaan u mahadcelinayaa waxaan u mahadcelinayaa dagaalka baraha bulshada inta ugu furnaay walaalihii taageeray oo aan maalin aanay dhaliilin sida walaalkay Cimraan laga hamidiya waxaan halkan kaga mahadcelinayaa Cabdi Fataah Boodheri waxaan halkan kaga mahadcelinayaa Yaasiin Aliyey waxaan halkan kaga mahadcelinayaa Idla Cumar oo ku nool Mombasa iyo dadka page-ka Facebook ee Sheekh Shantaay ku xiran insha Allah ta'ala waxaa hadii Allah cimri dheer iyo caafimaad yaan bulshada kula hadli karnaan si helno oo Allah Rabbul Alamin oo nasiyo waxaan sameynaynaa howlihii nagu la yaqiinay ay ugu horeyso gurmad walaal inaan sii wadno waxaan ku faraxsanahay dadkii Soomaaliyeed ay dal iyo dibad igala soo xiriiray ay u badnaayeen hooyooyinka Soomaaliyeed ay dadkii danyartahay ee aan soo bandhignay la soo gaaray caawinaad waxaan Allah weydiisanaynaa inuu nagu asturay amaanadii noo la soo dhiibay cidii soo dhiibatay na ay daawatay halkii ay rabtay aan dhignay Allah ayaan u mahadcelinaynaa nagu asturay maxaa yeelay amaanadu aad bay u culus tahay waxaan rabaa halkan inaan ku soo gunaanado dadka page-ka Facebook-ga Sheekh Shantaay ku xiran oo aan dadka la mid ahayn idinka oo iga maqan baa qalbigani wahaya idinka oo iga maqan baa nii duceeya musiibooyinka jira markaad gurihiina ka soo baxdaan Allah Rabbul Alamin hani garan mariyo goobaha shaqada markaad shaqadiina gudataan oo aad rabtaan inaad heerkii ku laabataan Allah jalla wa ala jidka hani yasiro wasaa'ibta jirto ee la isla og yahay
wax maanta ummadda u shaqaynaya shaqo fuufan ay daacadnimo leh ma muuqato Allah ni garamariyo insha Allah taala waxaan ku faraxsanahay dadkii baraha bulshada markaan imaanay qamiiskeena ku dhagay inay yihiin maanta dadka baraha bulshada ugu wasaqsay oo maanta ceybtii ugu weyneed dhaxda ka fadhiya oo maanta fadeexadoodii la wareejinayo maxaa yeelay adoonku markuu adoon gardaraysto ilaahay baa u gargaara waxaan xasuusinayaa maalinka baraha bulshada imiday dadkii weerarka igu soo qaaday waxay ahaayeen dadka nolosha ugu liita dadaan xishoonin dad maryaha xoortay waxaana daliil u ah maanta maqdacyada iyo fiidiyoyada la wareejinaya ee ayaka ku saabsan insha Allah taala Allah jalla wa ala ya boqol jeer umahad celinayna iyo in ka badan waxaan umahad celinayna insha Allah taala dadka tabintayna ku xiran aad baa u mahadsantihiin. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.